hagaag hadda waxaan dhiganaynaa oraahyo qaar ee muhiim ah. Let's get the ball rolling. oraahdan micnaheeda waa inaad bilowdo inaad wax samayso ama inaad bilowdo inaad wax samayso si aad ugu dhiirigeliso dadka kale inay sameeyaan wax la mid ah. Let's get the ball rolling. Why stand on formalities? Let's get the ball rolling right now. Why stand on formalities? Let's get the ball rolling right now. To call the shots. oraahdan micnaheeda waa inaad awood u yeelato inaad gaarto go'aano saameyn ku yeelanaya xalad ama arrin. To call the shots. I think the bigger question for this body to consider is who do you want calling the shots in space? I think the bigger question for this body to consider is who do you want calling the shots in space? To bring somebody up to speed. oraahda micnaheeda waa in qofka la siiyo dhammaan warbixinta ugu dambaysay ee arrin ku saabsan tahay. For now, bring her up to speed with what we know. For now, bring her up to speed with what we know. To cut corners. oraahdan micnaheeda waa inaad wax u qabato ama u samayso sida ugu fudud, ugu jaban, uguna dhaqsisan adigoo badbaadinaya lacag iyo waqtiba. And those who cut corners became more competitive in the market. And those who cut corners became more competitive in the market. You don't cut corners. You do it the right way. You don't cut corners. You do it the right way. To keep someone in the loop. oraahda micnaheeda waa in qof lala socodsiiyo horumarkii u dambeeyey ee ku saabsan arrin. Good. Keep me in the loop on that. Good. Keep me in the loop on that. Sea level. oraahdan sea level waa erey loo isticmaalo in lagu qeexo jagooyinka haya maamul mas'uuliyad sare ee shirkad ama urur. marka jagooyinka maamul sare af Ingiriis ahaan waxay ku bilowdaan xarafka C. CEO oo u taagan Chief Executive Officer. Chief Executive Officer micnaheed madaxa fulinta. CMO oo u taagan Chief Marketing Officer. Chief Marketing Officer micnaheeda madaxa suuqgeynta. CTO oo u taagan Chief Technology Officer. Chief Technology Officer micnaheedu yahay madaxa teknolojiyadda. hagaag waxaan gaarnay gabagabadii casharkeena. waxaan kugula talinayaa inaad ereyada iyo jumladaha dhowr jeer ku celceliso. waad ku mahadsan tahay daawashadaadii. waxaan isku arki doonaa casharka xiga insha allah. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.